السلام عليكم walaalay qaali aan jeclahay waa idin wada salaam meel kasta aduunka joogtaan waxaan rajeynayaa caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabo alxamdulilah saaka nabad ayaan kusoo toosnay bashbash iyo barwaaqo asxaabta cusub waxaan leeyahay gacan furan kusoo dhawaada haddii ay tahay markii ugu horreysay inaad kasoo booqatay subscribe inoo saaro insha allah waana kaaga mahadcelinayaa joostaada quruxda badan muuqaalka doonaysa soo gaarin xaqiisii insha allah laagta inaga iloobina laagta waa inoo muhiim adigan waxba iidan kama dhibaysa anigana waxa ay ii tareysaa waan mahadsantiin walaalay qaali aan jeclahay soo sida arkaysaan waxa waay maanta cuntooyin aad u fudud oo ilmaan ay kugu ciilayaan oo aad iyo aad nafaqadooda aad iyo aad u heer sareyso waaye waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan qado iyo quraac soo sida arkaysaan meeshan waxaan soo qaatay baaquli yar marka broccoli ayaan waxaan kusoo karsaday biyo kali ayaan kusoo kariyay broccoli wuxuu leeyahay fitamiinaad aad iyo aad u heer sareyso waa muhiim in caruurta la siiyaa haddii aad biyo ugu karso kaligiis ay ku cunaa cunuga haddii kale sidaan oo kale ugu farsamayso insha allah soo sida arkaysaa meeshan waxaan soo qaatay hal xabo ukun wiilkayga ayaa wuxuu leeyahay ku caawinaa soo ukunta wuxuu jecel yahay asaga inuu iibajiyo soo xoogaa waa yara caawinaa waxaana diidaa qolofta ukunta oo kaleeta inay iga raacdo maadaama gabar yar aan siisanayo insha allah waa ka ilaalin doonaa waan ka bixinayo wixii raaco waa muhiim caruurta in subaxii la siiyaa waxyaabo kala duwan hadda subax siiso mashaariic haddii kale subax kaleeta inuu kala bedeshaa soo sida arkaysa meesha aniga waxaa waaye gabar yar haystaa oo 9 bilood cunugaagana haddii aad gacanta ku siisanayso taas waa gooni laakiin ani waxaan kula talin lahaa hooyooyinka inay ilmahooda ku banaan kaligood inay cunaan cuntooyinka qaar way jiraan oo cunuga laga caawinayo ma ku dhahayo cunugaaga ha caawinin waayo anigu waa caawiyaa waan siiyaa laakiin waxaa waaye maalintii oo dhan hal afka uma wada gelgeliyo waxaan sameeyaa qadadoo kaleeto cunto aan shiiday oo kaleeto haddii aan afka u gelgeliyo waxaan sameeyaa cuntooyinka kaleeto waxaan ka dhigaa subaxii quraacda ama cashada oo kaleeto in cuntooyin yaroo fudfudud eeda kaligeed ee gacanta ku qabsan karta ama ay cuni karta ayaan uga dhigaa soo meeshaan birtaabadii marka inoo soo kulaato wax yaroo subag ayaan soo mariyay kadibna waxaan sameeyay ukuntii iyo broccoli aan isku soo dhaqasay ayaan dusha kaga daray sidaas ayaan u burburinaa waxaan ka dhigayaa anaga waxaan dhahnaa egg roll laakiin waxaa waaye waa burburinayaa insha allah kadibna waxaan sameyn doonaa baaquli yar ayaan ugu shubayaa xoogaa yaree qaadan karto qalal saaid ha ka dhigin ilmo yar markaas aysanaysa laakiin cunug hadduu yahay cunug yaroo ron oo weyn waxay ahayd waa u gadinaysaa uma jijibinaysid soo sidaas ayaan xoogaa ugu soo burburinaa kadibna waan ka qaadi doonaa waayo waa bisel waa inoo diyaar ukunteeni marabo inay saaid qaleel u noqoto waxaan rabaa wax yaroo qaadan karto ee cuni karto inaan ka dhigo maasha allah tabaarakallah saxankeedii yaraa ayaan usoo qaaday kadib halkaas ayaan ugu soo shubay ukuntii maasha allah tabaarakallah waxaa waaye indhahana u roon yahay waa cagaar iyo ukun isku jirto ukunta borotiina leedahay iyadana sidoo kaleeto broccoligan sidoo kaleeto meesha waxaan soo qaatay baron kule af kaleeto ama af soomaali wax lagu lahaa ma garanayo waxaa waaye geedkan aad iyo aad ayuu u macaan badan yahay caloosha caruurtana uu soo codsiinaa caloosha wuxuu ka dhigaa jileec maasha allah tabaarakallah aad iyo aad ayuu u fiican yahay maalintii oo kaleeto hal mar siiso ama wiigii 2 mar oo kaleeto asaga iyo Catherine Plum waxay dhahayaan caruurta si aysan caloosha adeeg uga naqanin insha allah Catherine Plum mahana waxaan sameyn doonaa insha allah sawirkiisa ama mar kaleeto anigoo sameynayo oo siinayaan soo idin tusi doonaa insha allah kadib meesha waxaan soo qaatay apelsin liinta marka waxaan sameeyaa liintan macaanta midda biyaha ma siiyo caagad uguma shubo waxaan sameeyaa midda macaanta ayaan qolofka uga fiiqaa kadib halkaas ayaan u saaraa waayo midda organic oo caadiga diyaarsan liintan ayaa ka fiican liinta way iska dhuuqaysaa kadibna waxa waaye ku fiicanta maasha allah tabaarakallah soo cuntadeeda ayaan halkan ugu soo diyaariyay haddartan waxaan leeyahay quraacdaada waa tan hooyo cun isku day marka waa cunaysaa u tilmaamay cunuga muhiimada ma inuu wada cuno waxa uu soo wada dhigtay waxa xoogo ugu soo badi u soo dhigo xitaa inta daadanaysa inta cunaysa inta daadanaysa banaanayso soo cunuga xooga cun yar oo ku filan inuu dhigto meeshan waxaan soo qaatay qadada raba inaan ku xujiyo waxaan soo qaatay saxan yar waxaan ku soo jarjartay digaag shafka 2 xabo ayaan soo jarjartay waxaan ku daray cusbo barbarooniga shiidan tikka masala ayaan hadda ku daray maasha allah tabaaraka xawaash alla la xawaashka haysta ayaa ku darsan kartaa hadana waxaan ku daray kriida loogu talagalay digaaga ama doorada ayaan ku soo daray marka intaas ayaan safac isku soo dhaxgelinaa birtaabada waxaan ku soo shubtay wax yar oo subag ayaan ku soo riday kadibna sidaas ayaan ugu soo shiil doonaa digaaga shafka waa soo jarjaray si yar isla eg xoogaa yar oo dhuuban ayaan soo jarjartay maasha allah tabaarakallah
qadada aan kari doonana waxaa waaye aad iyo aad ay u fiican tahay ilmahaagana maasha Allah tabaarakallah. yacni waa u kala duwi kartaa adigoo bariis siinaya ayaa haddana waxaa la rabaa bariiska laba nuucna ugu kala dhigto maalin bariiska inaad nooc kale uga habayso maalin kaleetana suugo gooni inaad uga samayso. yacni bariiska naftirkiisa ayaa waxaa loo sameyn karaa dhowr nooc ama dhowr siyaabood. soo digaagaas ayaan soo shiili doonaa suugo aad iyo aad u heer sareysa ayaan nooga soo bixin doonaa insha Allah. caruurta u fiican nafaqo badan leh ilmihiina uga faa'iideeya. ha isdhihin yacni waxaan faat badan ayay leeyihiin caruurta inta ay yaryar yihiin oo dhan faatka u baahan yihiin. yacni waxyaabaha subaga leh caanaha lagu kariyo waxaas dhan caruurta u baahan yihiin intay yaryar yihiin. waa kurmiishaha ayay ka qaadataa kurmiishooda ayay qayb ka tahay. soo ha ka welwelina cunugaaga uu ku cayilaa cunugaaga saan ayuu ku noqonaa isdhihin dadkan ay ka waalin. cunugaaga miisaankiisa adiga og cunugaaga cunmaha kaleete yacni miisaanada ilmaha way kala duwan yihiin. soo cunugaaga miisaanka loogu talagalay haddii oo miisaankiisa ka hooseeyo kole adiga ayaa og hooyo markasta waxaa waaye macallin ilmaheeda iyada qaas u waaye. soo meeshaan waxaan soo qaatay saxankii ayaan soo diyaarsaday oo digaaga ayaan hadda ka saarayaa. ilmahan waxaa fiican markasta cuntada qoyaanka leh in la baro cuntada inay leedahay qoyaan. waayo bariiska qaleelka ama baastada suugada gaduudka sacidka lagu karanayo cunuga iyada wax ka dayaysa mooyaane adiga cunug waxba kama helayo nafaqo ama waxba kama helayo uma soo saacidinayso. soo muhiim ilmahaaga inaa yacni cuntooyinka nafaqada leh cuntooyinka fudud oo adigana waqti badan kugu qaadanin jikada inaad taagnaato baro insha Allah. aad iyo aad cunugaaga waxaa ka dareemaysaa cuntada kaligiis inuu kuu cuno waxyaabo badan ayaa fahmi doontaan insha Allah. way fududahay cunuga xitaa dhadhan gooni ayay leedahay aad iyo aad ay u jeclaan doonaa cuntadan. soo meesha birtaawada markii aan ka bixiyay waxaan soo qaatay basal ayaan si yar yar usoo jarjaray iyo 2 xabo toon ayaan halkaas kusoo shiilay birti ma soo dhaqin. soo basashii iyo toonta markii inoo soo shiilmato waxaan kusoo daray caanaha whip creamka ayaan kusoo darsaday Facebook grade qofka sida uu garanayo modlognes grade afwan ayaan kusoo darsaday. haddana waxaan kusoo darayaa 3 qaando oo cream fresh ayaan kusoo darsaday maasha Allah tabaarakallah. intaan ayaan soo dhex gelinaa marka horeeto intii ay ka soo noqonayso suugo ama maraq diyaarsan. soo waa kan hadda waa inoo diyaar xoogaa markuu inoo soo kululaaday ama inoo soo karkartay ayaan waxaan soo sameeyay digaagii aan markii hore ka saaray ayaan hadda soo dhex gelgeliyay. soo cunugaaga waxaa waaye hadhow cuntadii markay qoyaan leedahay ama markay leedahay suugo ama maraq fiican markay leedahay cunugu u fududaanaysaa laqadiisa aad iyo aad ay u fududahay cunugaaga inuu cuntada ku barto kaliya. marka halkan waxaan kusoo diyaarsaday koosto ayaan waxaan kasoo bixiyay barafka dusha ayaan kaga soo darsaday. haddii ilmahaaga aysan jecleen koostada kale waa ka dhaafi kartaa ama waxaa sameyn kartaa waa u shiidi kartaa cuntooyin kale ayaa ugu basaray kartaa laakiin aan sidaan ayaan sameeyaa. koostada ayaan dusha kaga soo darsaday maasha Allah tabaarakallah kamaana soo badanin wax yar oo koosto soo intaas ayaan soo dhex gelinaa intay ka soo bislaanayso xoogaa koostada waxaa waa baby spinach uma baahna karis badan. hadda waa inoo diyaar suugadeen maasha Allah tabaarakallah. nyaanya yaryarista ayaan wax usoo jaray dhexda ayaan kasoo kala qaybiyay iyo barbarooniga cas ayaan asagana sidoo kale si yar usoo jartay. soo intaas way ka badan tahay waxaa waa qado aad iyo aad u fudud maasha Allah tabaarakallah. caruurtana ay ka heli doonaan yar wala weyn qof weyn xitaa wuu cuni karaa haddii aadan iska ilaalinin cayilka oo kaleeto waa cuni kartaa maasha Allah tabaarakallah. laakiin haddii aad cayilka iyo waxyaabahaas aadan jecleen iska ilaali cuntooyinka xoogaa faat ay leeyihiin laakiin caruurta aad iyo aad ay muhiim ugu tahay in la siiyo maasha Allah tabaarakallah. soo sidaa arkaysa meeshaan waxaan kusoo diyaarsaday saxankeeni bariis yar ayaan halkan kusoo sharaxday. waxaan rabaa saxankan cuntada inaan diyaariyo maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo cunto aad iyo aad u fudud indhaha u fiican maasha Allah tabaarakallah aad u qurux badan. walaalay qaali aan jeclahay haddii muuqaalka inta inala soo gaarto waxaan ka codsanayaa walaashay ama walaalkay inaad muuqaalka inoo share gareysaan laagtan hanaga iloobin. waxaa idin leeyahay waa idin jeclahay dhammaantiin meel kasta idinka joogtaan waxaan nahanay walaala halkan ku wada midoobay maasha Allah tabaarakallah. muuqaalka horeyna waxaa waa laagta waa laga laagta lama siinay ma fahanteen waa hagrateen laakiin waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan laagtiisa siisaan insha Allah. laagta waa inoo muhiim waxaa idin leeyahay markasta iyo goor kastaba waa idin wada jeclaa dhammaantiin meel kasta adduunka joogtaa. waxaa idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. muuqaalka xigo waxaa idin leeyahay kulanto dib oo xiiso leh. bye bye mac salaamo.